xuseen cabdilaahi bulxan oo maalmihii la soo dhaafay ku dhawaaqay inuu magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya u tagayo sidii uu ugu soo bandhigi lahaa muxaadaro ku saabsan qadiyadda Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay safarkaasi oo xukuumadda Soomaaliland ka hor istaagtay iyo sida uu u arko waxana uu yiri aan doonayaa inaan sababta aan u tagayo iyo sida ay ku timi maxaan ku idhaa fikradda inaan tago waxoogaa ka idhaa dhawaan waxa timi doodo fara badan oo maxaan ku idhaahaa xagga xukuumadaha soo dhex gashay iyo wada hadallo aqoon-yahankii oo iyagiina wada hadlaaya horeba waa loo wada hadli jiray imika helay fursado badan ama Turkiga ha noqoto ama Nairobi meela laga hadlo aqoon-yahan iyo ururada bulshada dadka socda ay ka hadlayaan marka su'aasha kolba soo noqnoqonaysa waxay ahayd war waxaan aad ka hadlaysaan reer Soomaaliland dibadaha un baad ka hadlaysaan anana waxa nooma sheegaysaan waa hadii aanu bulshanahay iyo aqoon-yahan bay leeyihiin xukuumadahu dadun baa mas'uuliyiin baa wada hadlaaya wax kale ma jiraan way arkayaan ma heshiinin way kala tageen waxaanka waxaan ahayn wax qoto dheer oo maxaan ku idhaa dadkii wargeliya lama hayo kaalaya dadkayga iyo aqoon-yahanka waxaan aad ka cabanaysaan ama aad sheeganaysaan ama taariikha kaalay u warrama ka dhaadhiciya qadiyadiinu waxay tahay waxa doonaysaan anigu uma arag in qadiyada Soomaaliland mid la dhuudhuunta ay tahay mid cuqdad laga qabana inay tahay anu ma qabo waxaan qabaa waa mid macquula oo cadaalad iyo taariikh iyo sharci lagu doodi karo oo meel walba la dhigi karo marka hadii casuumad la fidiyay oo dadan ku kalsoon oo aqoon-yahan oo really ay dhab ka tahay xal raadin de fursada waxaan iri yani idin dhaafin tag khatar kasta ay yeelatay u tag markii aan ogolaaday waxa yiraahdeen war waxa kale oo jirta in arinta trauma dhibaatooyinkan ma garanaysaa caafimaad ma dhimir ama ma garanaysaa cilmi nafsiga ah dagaalada iyo mushkiladaha qalalaasaha ka soo baxa waa takhasuskaagii bay ka mid tahay fadlan kaalayo dhaqaatiirtii dadkii kale caafimaadka ah iyana lecture u jeedi labaduba lecture bay ahayn inaan maxaan ku idhaa muxaadaro kale dadkii mas'uuliyiinta ah tagin haday yiraahdeen de markaa waan ogolaaday hase yeeshee arinku de waxaan igu yaala ma Saciid Aadan Jaamac Home Cable TV Hargeysa